tahay saaxiibayaal waxaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan daawadayaal soo dhawaada waa mar kale iyo walaalkan aadan karaama halkaa dabcan ga fiirsanaysaa nababartan youtube ku leeyahay aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horreysay aadna soo booqata fadlan subscribe inoo saar isla markaana riixka baleelka casi ay kuu soo gaadhaan oo aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaalada iyo dhacdooyinka kala gedisan ee halkan kusoo gudbino haddii aad hore inoola joogteen madaxaad inoo saaran tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay muuqaalka like sii saar like to muhiim ayay muuqaalka u tahay haddii aadan weli kusoo biirin barahiga kale bulshada sida TikTok iyo Facebook page-kayga halka waxaan kusoo gudbin doonaa muuqaalo iyaguna xiiso leh waa soo follow garan kartaa aad iyo aad baan kusoo dhaweynayna waxaan halkan ku hayaa runtii muuqaal aan bal aan wada fiirino si aynu u aragno marka hore macluumaadka waxaan baarsan yahay ilaa hadda aqligayga waa aamin la'yahay waxaan dhayga ku arkay Soomaali aad u tiro badan ila soo wadaagaysay oo dhahaysay war arintan ka hadla war arintan waa muhiim war ha laga hadlo laakiin wallahi waxa gabdhaha Soomaaliyeed ee Kenya jooga lagu sameeynaayo ama ha ogaadaan oo sax noqoto ama aysan noqonin wax qof kasta oo damiir leh uu u dul qaadan kara ma wax qof kasta oo Soomaali ah uu ka damqanayo fiir ina globally noqono dad magacoodii iyo sawiradoodii iyo taleefanadoodii la geliyo bartan halista ah oo kadibna lagu qoro dhigaalo qof kasta oo ajnabi ah oo Kenya waliba gaar ahaan Islii iyo maaragtay gudaha caasimada ee Nairobi taga uu raadinayo oo markiiba ay u soo baxayaan shakhsiyaadkan caanka ah ee gabdhaha Soomaaliyeed ah wax fadeexa ah waa runtii gabar Soomaaliyeed waxaas laguma aqoon baahi kasta iyo duruuf kasta u geyso laakiin arintan ilaa iyo hadda dad badan oo Soomaaliya ku wareersan dad badan arkay maalin kasta ila wadaagayo codsanaya in dadkan hadaysan ogeynna war loo sheego oo ay nidaam sax maadaama wadankaas uu diiwaan sax leeyahay ay maxkamad la qoraan dadka waxaan ka sameeyay haday sax tahayna dadka Soomaaliyeed loo sheego lagana feejignaado shakhsiyaadkaas waxa kamid ah fiiri sawirkan hadda u jeedaan arkaysan waa gabar magaceeda Asmara lagu qoray gabadhan website-ka weyn ee dhinaca haweenka lagu kala baayacdo sameeysta ma aragtay la ijaarto tusaale magaca toos diidan oo sheegnay la ijaarto si xaajadaha loogu fushido ayaa la soo dhigaa taleefankeeda ku qoran 20 sano jir inay tahay Nairobi ay joogto ayaa lagu qoray waliba Kenya oo ay kamid tahay gabdhaha la wacdo oo taleefankaas wacay automatic jeeri gabadhan Soomaaliyeed saas u xijaaban oo quruxda badan waxa bahdilaya Kenyan website-kooda wadanka ka diiwaan gashan yahay la yaqaano haddii gabadhan uma ekaba qof noocan oo xumahan leh laakiin iyada warmoog waa boqolaal qofood oo tiro badan oo maalin kasta booqanaysa meeshan shayaadiinta ay ku kulmaan ayaa gabadhan arkay Soomaali waa leeyahay waa la magac dila bulshadii la bahdila ay ka wan oo ehelkeedii hadday arkeen way ka niyad jabeen marka waxa loo baahan yahay inay sifa sharciya gabadha u marto oo iska celiso halkaas duulaan ku qaado oo iska qabato haddii laga aamuso waxa ka badan tacadiyada dhibaatooyinka kale iyo waxyeelooyinka xunxun ee ka dhacaya okay gabadhan kala fiiri hadda u jeedaan ee asxaabay Soomaali waa nuuriya lahaa sawirkaan soo qaaday waa gabar iska asturayadina iska qurxoon oo maaragtay madaxeeda u daboolin waxa lagu leeyahay taleefankeeda ku qoran fiiri tilaada ka soo tag gabadhan kala fiiri Soomaalida haddana waa gabadhan u jeedaan mala Allah ama mala Soomaali waa lagu leeyahay taleefankeeda ku qoran fiiri sawirkaas ilaa aan guular shay kursiga ay isaga fadhiso xijaabantaha waa surantahay marka qof uu ka soo horbaxo ka hor soo noqona gabadhan waa la magac dilaya waxa ka sii daran ba gabadhan kala fiiriya adduunka qofka aan ogolaansho laga haysan waxaan kale in lagu sameeyo qalad weyn waa waliba Mareykan noocan oo kale in la soo geliyo maba ugu sii jirtaba fiiri gabadhan taaliya lahaa iyada xaalkaana haysta marka xaaladahan Nairobi aad uga socdaan maalin ka dambeys gabadha ka shidan tahay oo Soomaali ah la soo gelina waa macnaheedu ciwaan lagu qoraa marka ayagii ma ogniya bulshadii Soomaaliyeed ee Kenya joogtay nafteeda ku wareersan doodo badan ee dhalisay xitaa waxaa jiray in eedeen culus loo jeediyay bari dhaxdaas gabdhaha Soomaaliyeed oo lahayd waxay noqdeen kuwo hay'ada ah oo Kenya ku saqajaan waalidiin badan aan shaki qaaday waxaan oo kala xoojinaa aragtidaas waxay xoojinayaan gabdhihii warmoobiska ah iska shaqaysanaya oo dukaamo iska furtay qaarkood nolol maalmeed raadsanaya sawiradoodii la bahdila ayagana ma oga
hadday dacwoodaan magdhowna way helayaan sifa sharci ahna ayaga guusha ku qaadaan yani sababtoo waxaysan ogeyn waxaan lagu sameynaa gabadhaan kala fiiraada wardaa la dhahaa waxaa lagu sii raaciyay bilaa la furay waa la xiray waxaa la dhahay sawirkeeda runta ah waaye aqoon fiir hay Kenya joogtaa wili soo sii meel lahay Kenya dadka Kenya deega ku noolaa yaqaan taleefankeedana lagu raacsi marka haddii sawirkan oo iyada qofka la dhahay taleefankii la raacsiiyay meeshu joogan la sheegay oo taleefankii haddii la waco qofkii uu kula hadlayo dad badan nafteeda shaki galaa oo leeyahay inuu gabdhaha ama ayaga waxaan ku shaqaysanaya laakiin Allah wacam waxaa kaloo marka yaab igu abuurtay markaan arkay aad yaab igu abuurtay gabadhan oo caanka ah iyadana baraha bulshada meesha la soo geliyay warmuu waa laga yaabaa gabadha baraha bulshada laga yaqaano oo tiktokera oo muuqaaladeeda dadka madadaalisa waaye oo maaragtay qof walba oo baraha bulshada isticmaala uu arki karo dhalinyarada meesha ku jirta iyada taleefankeedii waxayda ku qoran oo inkasta oo magaca iyo qofka aysan islahayn oo dareemaysa dadkan inay tuuga yihiin sumcad dilayaan ummadda Soomaaliyeed loo soo diray magaca gabadhan iyo magaca kale isma laha ugu qoran haddaysan iyadu magacaan aysan lahayn iskeeda sax u siihay laakiin magaca lagu yaqaan kaas ma raxma lagu yaqaan okay meesha ku jirta bariyaan ku dhashay miyaysan ahayn in lagu baraarugo khatartan gabdhahan masaakiinta ah ee lagu sumcad dilay adduunka hadda wuxuu noqday taleefan iyo jaanis isku hel war adoo xitaa gurigaaga iska dhex socda oo iska dhex lugeynaya guriga dhexdiisa deriskaaga la soo kala baxaayo dad uu ku duwa meesha ku jirta baraha bulshada ku jirta gaar ahaan meelaha lagu kala ganacsan marka sumcaddii waa dhammaatay wax dhowr mar haddaba qof kasta oo Soomaaliya oo gabdhahan ka saay ama ehel la ah ama qaraabo la war niman yahow maxkamad ku furta website-yadan oo aan si gaar ah la wadaagi doono iskana qabta Soomaali oo dhan waa inay baraarugtaa waxa aaminsanahay adiga daawadaha ah xitaa inaan ku jirsin meesha sababtoo ah aaminaad ma laha qof kasta sawirkiisa lagu soo tago hadda kor soo dhigta adoo shidan xitaa qasab waa in halkan laga helo waxa ku arkaysa waa in daraanda waa naxdin waa argagax marka waxaan naga ilaalinayna waxay tahay cirdiga iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed oo dhan kasta laga soo waxa daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa muuqaalka waxaan filayaa markaasi inaad ka bogateen macluumaadkii markaasi xambaarsanaa muuqaalkani oo walaalkan aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horeysay inaad soo booqato fadlan subscribe inagu sharaf oo inoo saar haddii aad horey noola joogtayna aad iyo aad baad mahadsan tahay sidoo kale riix kambalaalka cas si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada iyo dhacdooyinka xiisaha leh halkan kusoo gudbino tan iyo muuqaalkan mid lamada intaan ku kulmayno walaalkan aadan karaama kaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu